kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhaya galbeedka gobolka city ee dowladda deegaanka soomaalida waxaana warbixintan ku eegi doonaa dagaaladii halkaasi ka socday ee u dhexeeyey ciidamada deegaanka soomaalida ee new booliska iyo ciidamada canfarta ee dhulballaarsiga ku waday sanadihii ugu dambeeyeyba halka ciidamadu ay hadda ku kala sugan yihiin ee dagaaladu ay ka socdaan iyo waxyaabihii ugu dambeeyey dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey ka dhacay furiimaha hore ee ay isku horfadhiyaan ama ay ku dagaalamayaan ciidamada deegaanka soomaalida iyo kuwa canfarta waxaan dhinaca kaleeta eegi doonaa abaabulka iyo duulaanka dagaal ee canfartu ay soo wado iyo sidoo kaleeto qowmiyadaha kale ah axmaarada iyo oromada oo la sheegay inay ciidamo tiro badan u soo direen deegaanka canfarta islamarkaana ay qeyb ciidamadoodu ka yihiin dagaalka soomaalida lagula jiro haddaba maxaa ka jira eedeymahaasi in deegaanka axmaarada iyo oromadu ay qeyb ka yihiin dagaalkaasi waynu eegi doonaa waxaan dhanka kale iyadana dul istaagi doonaa eedeymo culus oo loo jeedinaya ciidamada militariga ee dalka etoobiya ee deegaanadaasi ku sugnaa oo la sheegay in ay iyagana dagaalka qeyb ka yihiin oo dhinaca canfarta ay la safteen haddaba eedeymahaasi maxaa ka jira sidee ayay ciidamada militariga lagu ogaaday in ay diriiskii militarinimo intay bixiyeen ay xidheen diriiska ciidamada deegaanka canfarta islamarkaana ay dagaalka qeyb ka yihiin waynu dul istaagi doonaa waxaan dhanka kale eegi doonaa shacabka deegaanka soomaalida oo wacdaro la yaab leh ka dhigay jiidaha hore ee dagaalka islamarkaana qaaday tallaabooyin aan horey looga baranin shacabka dowladda deegaanka soomaalida haddaba maxay tahay wacdarada la yaab kale ee shacabku ay dhigeen waynu dul istaagi doonaa soo dhawaada halka uu warku inagaga imaanayo waa toos t v barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa guud ahaan dagaaladii galbeedka gobolka city iyo waxyaabaha kasoo kordhay waxaanad aalaaba kaga bogan doontaan toos t v oo aad ka daawan doontaan xog walba oo kasoo korodha galbeedka gobolka city iyo guud ahaan dalka etoobiya iyo caalamkaba kusoo dhawaada haddii uu muuqaalku ina soo gaara like saara aragtidiina noogu reeba qeybta commentiga aynu ku bilownay asbuucyadii ugu dambeeyeyba dagaalo lagu halaagsamay ayaa ka dhacay galbeedka gobolka city oo u dhexeeyey ciidamada deegaanka soomaalida oo difaaca haya dhulka soomaaliyeed ee galbeedka gobolka city iyo ciidamada dhulballaarsiga ku jira ee dulmi wadayaasha deegaanka canfarta dagaaladaasi jabkii ugu xooganaa ayaa lagu gaadhsiiyey canfarta waxaa laga qabsaday deegaano aada u tiro badan maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa la isku horfadhiyaa goobihii ugu dambeeyey dhulka soomaaliyeed oo markaasi weli qaarkood ku harsan gacanta deegaanka canfarta ciidamadu waxay isku horfadhiyaan duleedka magaalada garbaciise oo maalmihii ugu dambeeyeyna dagaal ahliya oo halkaasi ku dhex maray ciidamada new booliska iyo kuwa canfarta ee dhulballaarsiga ku jiray dhowrkii maalin ee ugu dambeeyey wax dagaala ma dhicin waxaa la kala qaatay dhaawacyadii iyo sidoo kaleeto meydadka ayaa la kala xabaalanayey ciidamadu waa ishor fadhiyaan waxaa sidoo kaleeto dagaalkaasi hakad ku keenay saraakiil uu soo diray abi axmed oo markaasi wadahadal ama u kala dabqaadahayeen labada dhinac ee halkaasi dirirtu ay ku dhex marayso waxaa dhanka kale dhinacyadu ay ka warsugahayeen odayaashii dhaqanka ee labada deegaan waa deegaanka canfarta iyo kuwa soomaalida ee asbuucyadii ugu dambeeyey iyagana ku sugnaa magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya oo wadahadal halkaasi iyagana uga socday go-aanada kasoo bixi doona iyo sidoo kaleeto wadahadaladaasi dhinaca ay u biyo shubtaan ayay labada maamulba ka warsugahayeen ama labada ciidanba ay ka warsugahayeen walow wadahadaladaasi wax natiija aysan kasoo bixin balse dhinacyadu waxay labadii maalin ee ugu dambeeyeyba ka dhursugahayeen waxa kasoo bixi doono ama go-aanada kasoo bixi doono labada maamul ee ku wada hadlayay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya dhinaca canfartu abaabul xoogan bay wadaan waxaa dhanka kaleeto xoogan laga helayaa in deegaanka axmaarada iyo sidoo kaleeto oramaduba ay taageerayaan canfarta oo dagaalkaasi ay garab iyo gaashaanba ay ugu yihiin waxaa dhanka kale la sheegayaaba in ay ciidamo iyo hubba ay soo siiyeen oo ay u soo direen deegaanka canfarta islamarkaana dagaalkan hadda canfartu ay isku diyaarinayso iyo abaabulkan iyo duulaankan ay soo wado ay qeyb ka noqon doonaan ciidamo axmaaro iyo oromo ah waxaa dhanka kale iyadana la helay in ciidamada militariga ee dalka etoobiya iyagana ay dagaalkaasi ku garab siinahayaan ciidamada canfarta oo ay qeyb ka yihiin iyadoo weliba sanadihii ugu dambeeyey eedeymo culus loo jeedinaya ciidamada militariga islamarkaana lagu eedeynayay inay gaboodfallada dhaca boobka kufsiga galbeedka gobolka city shacabka ku dhaqan lagu hayay ay iyaguba qeyb ka ahaayeen halka dowladda federaalkuna marar badan ay ciidamo militariga halkaasi keentay ayna u keentay nabad ilaalin iyo in ay labada maamulo ama labada deegaan ee dagaalamahaya
ay kala dhex joogaan oo shacabka badqabkooda ay ilaaliyaan halkii ay ka ilaalin lahaayeen wixii loo soo diray iyaga ayaaba qayb ka ahaa oo barakicinayay shacabkii ku dhaqnaa degmooyinka Garbaciise Catayto Candhuuftu dal la helay dhulkaasi oo bilihii ugu dambeeyay ama sanadkii ugu dambeeyayba gacanta deegaanka Canfarta ku jiray kadib markii shacabku ay u adkeysan waayeen gaboodfalada ciidamada militariga kuwa Canfarta jabhadaha kaga imaanayay ee sida joogtada ay ula kulmayeen dad aad u tiro badan oo shacaba ayaa dabcan sanadihii ugu dambeeyay halkaasi lagu xasuuqay si kastaba dagaalkan hadda socday waa uu ka duwan yahay dagaaladii hore iyo hanaankii uu ku socday xukuumadda Mustafa Cajar ayaan qaaday tallaabooyin muhiim ah bulshada Soomaalida ee dowladda deegaanka Soomaaliduna ay si weyn u soo dhaweysay dagaaladii ugu dambeeyay guulo waaweyn ayay ciidamada New Booliisku ka keeneen dhul aad u tiro badan ayayna gacanta ku dhigeen oo 200 kilomitir iyadoo intii ugu dambeysay la isku haysto ciidamada deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale kuwa dulmi wadayaasha ee xadgudubka ku hayay galbeedka gobolka City ee Canfarta ayaana hadda isku horfadhiya meel aan aad uga dheerayn degmada Garbaciise oo noqonaya dhulkii ugu dambeeyay haddii hadda gacanta lagaga dhigo ciidamada Canfarta ee halkaasi ku sugan waynu eegi doonaa abaabul xoogan bay Canfartu wadaan iyadoo waliba dhinacyo badan garab ka helaya oo la sheegayaba in duulaakan hadda soo socdo Axmaaro Oromo military ay qayb ka noqon doonaan ciidamada militariga ayaa la sheegayaaba inay diriiskii militarinimo iyo kaararkiiba ay xareeyeen isla markaana ay diriiska deegaanka Canfarta ay u soo xidheen dagaalkii ugu dambeeyay ayaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen oo ahaa run ahaantii dagaal aad iyo aad u adag gacmaha la iskula tagay kadibna iyadoo waliba dagaalkaasi uu sii xoogeysanayo roobab waaweyn oo mahigaana ay ciidamada soo kala dhaxgaleen oo halkaasi uu ka daayay kadibna ciidanku ay fooda kala qaadeen waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa dagaalku weli ma dhamaanin abaabul xoogan ayaana dhanciyada wadan xagga dowladda deegaanka Soomaalidu waa diyaar geesiyaasha New Booliiska ayaana ku sii siqaya jiidaha hore iyo goobaha hadda ugu dambeeyay la doonayo in laga faramaroojiyo Canfarta ee hadda gacantooda ku jira waa deegaanadii Soomaaliyeed ee horey ay u qabsadeen dhinaca kale shacabka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa arrimo aan horey looga baranin run ahaantii wada maalmihii ugu dambeeyayba jiidaha hore ayay iska xaadiriyeen iyadoo waliba gobolka Jarar ama Dhagaxbuur midkaad u taqaanaba iyo sidoo kale gobolka City shacabka ku dhaqan ay garab istaag iyo arrimo aan horey looga baranin shacabka dowladda deegaanka Soomaalida ay u fudiyeen ama ay la garab istaageen ciidamada geesiyaasha New Booliiska waxa iska soo daba dhacaysa kaalmada iyo garab istaaga iyo dhiirigelinta loo sameeyo ciidamada New Booliiska baabuur ayaa laga buuxinayaa caagadaha galaysan jirgaamada galaysan ama gal kale markaasi biyaha lagu qaboojiyo maadaama dhulka lagu dagaalamo dhul aad u kulul u yahay sidoo kale to waxa ay ciidamada New Booliiska si istaba joog loogu geenaya hilibka luqmada loo yaqaan ama oodkaca waxa u taqaanaanba waxa sidoo kale to halkaasi iska sii daba dhacaya kaalmooyinka kala duwan sida dharka ay xidhan lahaayeen daawooyinka iyo agabyada markaasi muhiimada weyn u leh jiidaha hore ee dagaalka ee hadda loo baahan yahay waxaa sidoo kale garab socota intaas oo dhan oo shacabku iyagu si iskooda ay iskaga xadiranayaan goobaha caafimaadka ee markaasi dhiig shubista loogu talagalay iyadoo xirfadlayaasha caafimaadka naftirkooda ay qayb ka yihiin gurmadka iyo sidoo kale garab istaaga ciidamada New Booliiska waxaynu leenahay shacabka dowladda deegaanka Soomaalidu wiil waa dhishaa laakiin dhul ma dhashee dhulka ha la difaaco horey u socda kaalmada iyo garab istaaga iyo dhiirigelinta ciidamada New Booliiska u sameeynaysan marna ha ka daalina horey u socda guuleysta ayaana idin leenahay aniga iyo sidoo kale taageerayaashayda Toos TV ku xidhanba